shaqo la'aanta Koonfur Afrika ayaa gaartay meel aad u hooseysa oo waxa lagu sheegay 27% dad dhalinyaro ah ayaa camal la'aan u fadhiya darbiyada waxaana kordhay dambiyada dilalka ay dhaca isugu jira sidoo kale waxaa hoos u dhacay dhaqaalaha dalka 48 xisbi ayaa lagu wadaa inay arbacada kuwaas oo loolan xoogan kula jira xisbiga talada haya ee ANC oo liisa doorashada uu qayb ka yahay inay isbedel weyn ku sameyn doonaan dhaqaalaha dalka shaqo la'aanta horumarinta adeega bulshada iyo isla xisaabtan dhaba run ahaantii doorashadan waa mid aad iyo aad la isugu hardami doono ANC iyo xisbiyada 48 aan ku sheegay waxa ugu cadcad ANC iyo DA Democratic Alliance iyo EFF waa Economic Freedom Fighters oo hogaaminayay nin hore uga go'ay ANC da oo leerada Julius Malema oo ahaa garabka dhalinyarada waxay u muuqataa in xisbiga ANC uu wajahayo loolan xoogan oo kala dhaxeeya xisbiyada mucaaradka kuwaas oo ku doodaya in xisbiga ANC uusan istaahilin in mar kale uu hogaamiyo dalka isla markaana iyaga ay soo celin doonaan dhaqaalaha dalka iyo waliba inay dadka shaqooyin u abuuri doonaan run ahaantii aad iyo aad ayay geliyeen xisbiyada mucaaradka ah waxayna ka faa'iideysanayaan dhinaca shaqo la'aanta baahsan iyo muusiqi ANC soo dilooday ANC naftigeeda ayada rogaal celin badan ayay wadaa lama dhayeelsan karo kuraas badan oo baarlamaanka oo hadhow check and balance ku sameyn doonto ANC oo aan u sahli doono ANC waxay rabtay inay baarlamaanka marsiiso ayaa laga yaabaa inay baarlamaano badan ay keenaan xisbiyada mucaaradka doorashadii hore xisbiga ANC waxa uu ku soo aaday iyadoo ay ka dhex jirto kala qaybsanaan xoogan kadib markii madaxweynihii hore lagu soo eedeeyay musuqmaasuq waxaana xisbiga uu sidaa ku lumiyay codad badan balse sanadkan ayaa la filayaa in xisbiga uu helo codad ka badan kuwii sanadkii hore walow aysan sahlanayn xisbiyada mucaaradka ee loolanka kula jira doorashadan ayaa noqonaysa doorashadii lixaad ee ka dhacda dalka Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994 kolkaas oo South Africa ay ka soo baxday nidaamkii uu xukumayay cadaanka ee ku saleysnaa midabta koorka Cabdikariin Mursal telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town